بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha sharafta badan ee ku xiran channelkeena caafimaadka ee caafimaad channel. Maanta waxaan ka hadli doonaa topic aad muhiim u ahna wax fudud oo qof walba ka heli karayo gurigiisa. Haddaba maanta waxaynu ka hadli doonaa faa'iidooyinka laga helo mooska, gaar ahaan qofka haddii uu cuno 2 xabo oo moos ah maalin kasto, faa'iidada uu ka heli karo. Sidaan wada ogsoonahay, moosku waxa uu ka mid yahay qudaarta caafimaadka u roon. Cunidaanka mooskana waxay kordhisaa tayada iyo fayaqabka iyo caafimaadka aadanaha. Haddaba, cunista mooska waxay korisaa nudayaasha la dagaalama kansarka. Inuu qofka muddo badan cuno ama maalintii uu cuno 2 xabo moos ah, waxay ka hortagtaa unugyadii sameyn lahaa kansarka. Moosku waxa uu leeyahay tamar, waxaana laga helaa maadada potassium-ka oo faa'iido weyn u leh caafimaadka. Waxaan ka hadli doonaa faa'iidooyinka caafimaadka ee laga helo cunista mooska 2 xabo maalin walba. Yacni maalin walba haddii aad cunto 2 xabo oo moos ah, faa'iidooyinka aad ka heli karto: 1. Wuxuu yareeyaa niyad-jabka, depression ama walwalka ama isku buuqa. Moosku waxa uu yareeyaa heerka cadaadiska maskaxda ee ka dhasha walwalka, walbahaarka iyo calool-yowga. Run ahaantii, cudurkan depression-ka waa cudur aad halis u ah. Wuu leeyahay daawo, balse dadka badankood waa ay qarsadaan oo ma sheegaan. Xitaa dadka qaar in ay xanuunsan yihiin lama moodo. Maxaa yeelay qofka kaligiis ayuu isla hadlayaa, maskaxdiisa ayaa isku buuqaysa, wuu iska walwalaa, wuu iska fikiraa. Haddaan Soomaali nahay, waxaan u aragnaa in uu yahay ceeb, balse ceeb ma aha, waa cudur daawo leh. Qofka haddii laga daaweyn waayo ama uu ka hortagi waayo ama wax laga qaban waayo, wuxuu u keeni doonaa mustaqbalka dambe dhibaato. Haddaba, waxaa yareeyo 2 xabo oo moos ah haddii aad cunto maalintii, wuxuu yareynayaa niyad-jabka ama depression-ka. Faa'iidada 2. Wuxuu daaweeyaa gaaska. Moosku waxa uu ka hortagaa gaaska iyo nabarrada ku sameysma caloosha iyo mindhicirrada. Sidoo kale, moosku waxa uu daaweeyaa gaaska iyo nabarrada caloosha. Faa'iidada 3 ee laga hela in la cuno 2 xabo oo moos ah maalin kasta. Moosku waxa uu ilaaliyaa tayada dhiigga. Mooska waxa uu ilaaliyaa tayada iyo caafimaad qabka nudayaasha dhiigga. Waxaad cuntaa 2 xabo oo moos ah subax walbo si aad uga badbaado dhiig la'aanta. Dhiig la'aanta, anemiyada ama dhiig yarida wuu u wanaagsan yahay mooska. Qofka subax kasta cuno 2 xabo oo moos ah, halis uguma jiro inay ku dhacdo dhiig la'aan ama dhiig yari ama anemia. Faa'iidada 4 ee mooska, wuxuu daawo u yahay calool istaagga. Maadaama mooska uu leeyahay baal ama fiber, wuxuu daaweeyaa calool istaagga. Cun 2 xabo oo moos ah maalin walba oo ka takhallus calool istaagga. Cudur walba wuxuu ka imaadaa caloosha. Caloosha haddii ay fadhiso, qofka xitaa maalintaas ma ahaanayo qof faraxsan. Maxaa yeelay wax walba iyo dhib walba waxay ka bilowdaan caloosha. Qofka calooshiisa in ay socoto waxaa ku jira caafimaadkiisa. Mooska wuxuu ka mid yahay waxyaalaha caloosha socodsiiyo. Wuxuu leeyahay fiber ama qolof ama baal u wanaagsan calool jilcinta. Faa'iidada 5 ee laga helo mooska. Moosku waxa uu leeyahay tamar ama energy. Mooska waxaa ku jira 3 sonkorood oo dabiici ah oo kala ah fructose, glucose iyo sucrose, kuwaasoo ka caawiya jirka in uu helo tamar ku fiican. Qofka in uu noqdo qof firfircoon, uu noqdo qof awood leh, tamar leh, waxaa kaa caawin kara mooska, maadaama laga helo mooska energy iyo tamar fara badan. Faa'iidada 6 ee laga helo mooska. Moosku wuxuu xoojiyaa lafaha. Lafaha jirka ayuu adkeeyaa. Moosku wuxuu xoojiyaa ama adkeeyaa lafaha. Sidoo kale wuxuu fududeeyaa nuugista calcium-ka oo ah maado lafaha u roon.
sidaan ognahay calciumta waa maadada dhista lafaha. marka mooska wuxuu fududeeyaa maadadaas in la soo nuugo. maadadaas cuntooyin ayaa laga helaa. mooska wuxuu fududeeyaa in la soo nuugo maadadaas. sidaa darteed waxa uu lafaha ka dhigaa kuwo caafimaad qaba oo xoogan. wuxuu xoojiyaa lafaha, waxaa laga helaa calcium waana laga soo nuugaa. sidaa daraadeed dadka lafaha burburka qabo ama haweenka sidoodaba si gaar waxay ugu baahan yihiin calcium, maadaama mar walba ay dhalayaan, mar walba ay caado ka imaanayso, mar walba uu dhiig ka imaado waxaa soo raacayo calcium. marka hooyooyinka iyo gabdhaha way u baahan yihiin in ay si gaar u isticmaalaan cuntooyinka laga helo calciumka. in aad daawo ahaan u qaadato waxaaba kaaga habboon in aad cuntadaada maalinta aad cuni lahayd aad ka mid noqoto ama aad ku darsato cuntooyinka laga helo calciumka. faa'iidada 7aad ee laga helo in la cuno 2 xabo oo moos ah maalin kasto wuxuu la dagaalamaa cudurrada. mooska waxa uu yareeyaa sumowga jirka, waxaana uu jirka ka nadiifiyaa wasakhda. sumowga jirka ama antioxidant ayaa ku jiro, maado sunta ka hortagto ayaa laga helaa mooska. faa'iidada 8aad ee laga helo mooska wuxuu kordhiyaa xusuusta. cunida mooska waxay sare u qaadaa awoodda xusuuseed ee qofka. xaddi badan oo ah maadooyinka teratovitam, potassium iyo magnesium ee ku jira mooska waxay sare u qaadaan xusuusta qofka ayuu sare u qaadaa mooska. faa'iidada 9aad mooska waxa uu yareeyaa halista dhiigkarka. moosku waxa uu yareeyaa halista uu qofka ku qaadi kara xanuunka dhiigkarka oo loo yaqaano dilaaga aamusan. maadaama mooska ay ku yartahay maadada sodium isla markaana ay ku jirto potassium badan, wuxuu 10% yareeyaa halista dhiigkarka. maadaama ay ku yartahay mooska sodiumka ayna ku jirto potassium badan, wuxuu yareeyaa halista dhiigkarka. faa'iidada 10aad wuxuu isu miisaamaa jeecaanada jirka ama hormooniska jirka ku jira. mooska waxaa ku jira xaddi badan oo maadooyinka potassium iyo vitamin B6 kuwaasoo u roon soo saarista xaddi dheecaan walba ee loo baahan yahay. hormoonada jirka waxay u baahan yihiin in la isku dheelitiro. haddaba mooska wuxuu ka qayb qaataa isku dheelitirka hormoonadaas. faa'iidada 11aad ee laga helo mooska wuxuu caawiyaa lumista miisaanka dheeriga ah. moosku wuxuu sahlaa saarinta iyo luminta baruurta aan loo baahnayn ee jirka kaydiya. dadka u baahan in ay iscaateeyaan, qofkii asoon dhib marin, asoon sheegay bir qaadin, asoon wax kala sameyn, mooska wuxuu kaa caawin karaa in jirkaagii nafaqooyinkii uu u baahnaa uu helo si fududna miisaankaagii uu ku lumo. faa'iidada 12aad moosku waxa uu yareeyaa xanuunada maskaxda ku dhaca. xaddi magnesium ah oo ku jira mooska ayaa yareysa xanuunada ku dhaca maskaxda sida Alzheimerska iyo Parkinson's. faa'iidada 13aad moosku waa qudaar qiimo ahaan jaban, se faa'iido aad u weyn leh xagga caafimaadka iyo fayaqabka qofka. cun 2 xabo oo moos ah maalin walbo oo hel faa'iidooyinka caafimaad ee ka soo hadlay. haddaba haddii aad tahay qof cuna qaadka iyo sigaarka, iska jooji oo cun qudaarta ugu horeeya mooska. qudaarta cagaarani waa furaha caafimaadka iyo fiyowqabka. qaadka iyo sigaarkana waa furaha cudurka iyo caafimaad darada. haddaba 13kaas faa'iido waa kuwa ugu muhiimsan ee laga helo mooska. weliba qofka haddii uu cuno 2 xabo oo moos ah subax kasta ama maalintii. waan filayaa in aad ka faa'iidi doontaan walaalaha qaaliga ah. u sheer gareeya walaalihiina kale. haddii aad nagu cusub tahay inoo saar subscribe-ka. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.